waagii hore culimadu waxay ku jireen dadka ugu qiimi badan ee ugu sharaf badan ee Soomaalidu ay aad u ixtiraamaan laakiin waqtigan lagu jiro dadku waxay dhahayaan ninka wadaadka war ka carara ma isleedahay culimada maanta joogta sharaftii waxay ku ciyaareen wadaadada iyo booska ay kaga jireen bulshada Soomaaliyeed. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Horta culimadu runtii wali waxaan aaminsanahay meel sare inay ummadda Soomaaliyeed ugu jiraan laakiin wuu jiraa inuu khalal ama waxoogaa shakiya inuu soo baxay dhinac kale oo positive oo isagana in la tilmaamo u baahan ugu jiraan. haddaan dhinaca positive ku bilaabo waagii hore culimadu waxay ahaayeen dad iska dhaqaal ahaan liita oo dadka ku xiran oo gacanta hoose ah oo dad loo naxariisto oo loo tolo sheekha hala daayo sheekhi oo ma garanaysa oo islaanta markuu ninka u soo galo la yiraahdo ninka codka markuu ma sheekhi waa dhib male iska daa u yiraahdo marka duruufo dhaqaalaha jiray siyaarada iyo waxyaabo la mid ah hadda laakiin culimadii waxbay barteen dhaqaalay sameeyeen siyaasad bay galeen taa marka khaladaad badan bay keentay marka respectii loo hayay qayb ka mid ah xoogaa halkaas uu ku lumay oo de challenge bay galeen siyaasad iyo wax la mid ah marka waxaan aaminsanahay culimadu bulshada ka mid yihiin dhaawaca ummadda soo gaaray baana soo gaaray khaladaad la galayna wuu jiraa oo ay culimadu ay ama gaabis aan idhaahdo khaladiyaan dhihina ama gaabisna wuu jiraa laakiin anigu waxaan aaminsanahay weli culimadu ummadda iyagoonbaa hormuud u ah leanna waxay xambaarsan yihin wixii ugu weynaaya ummaddu ay lahayd oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii iyo diintiiba ay xambaarsan yihin inkastoo adigu qurbada iyo halkan aad u dhaxayso haddana dareen waxaa jira dadka Soomaalida ee wadamadaas galbeedka ah jooga in culimadiina halkan joogta aad wixii shaki galiya inuu xalaal yahay inuu xaraan yahay sida bangiyada oo kale iyo caymisyada aad fadwo ka soo saartaan oo xalaalaysataan annagii qurbadii joognayna aad nagu leedihiin guryaha ma iibsan kartaan waxaan iska ilaaliya wax walba aad xaraan nooga dhigaysaan Soomaaliduna waxay dhihi jireen qaalin bixiye qiil ma waayo marka miyayna taasi ku tusaynin in aad meeshii interest idinku jira aad wax xalaalaysanaysaan meeshii ayna wax idinku jirinna aad leedihiin ha laga fogaado way dhici kartaa arrinta iyada laakiin waxayna dadku ogeyn fataawada waqtiga ayay la socotaa iyo zamanka wixii waagii hore jiray hadda ma jiro xataa waqtiga culimada Imaam Shaafici oo 1200 iyo ka badan ka hor noolaa wuxuu leeyahay qowl al-jadiid wal qowl al-qadiim hadalkiisii hore iyo hadalkiisii dambe oo hadalkiisa dambana inta badan hadaladiisa hore waa ka duwanaa markaas wuxuu oran jiray markaas saas hadda kood hada ma qulna taas waa waxaan waagi hore oran jirnay tan waa waxaan hadda aanu niri waaqic adduunku isbedelay dhaqaalihii baa isbedelay teknolojiyadii baa isbedeshay fataawadu marka soo baxaysa waxay la socotaa fataawo mucaasara way oo casriga iyo waqtiga iyo zamanka la socota waxna waa justifiable oo wax yani waqtiga la socdo oo maxaan ku yiraahdaa waxyaabo xumaan loo arki jiray ama khalad loo arki jiray buxuud badan markii laga sameeyay waaqic adduunka markii la fiiriyay fataawo laga saartay waxa kale oo in badan hadda dadku nagu kaftamaan timaha la madoobeystay iyo garhka la madoobeystay iyo wax la mid ah warwaagii hore xaraan way dhihi jirteen oo hadda markay xoogaa cirowdeen oo raggiin iyo soo kobcay oo daceeradii ay timid baa waxaad leedihiin hadda maaragtay waa bannaanta in la madoobeysto say wax u jiraan ama hanaga qarsoonaato waaga iyo hadallo culimadu ay dhaheen oo bannaynaya ayaa jira marka miyay qarsoonayd miyaanu qarinaynay allahu aclam marka waxna waa ka jiraan runtii qaybo qaar ka mid a qaarna waa wax saxa oo waaqica iyo timeka la socdo okay dhaqaalaha Soomaalida hadda marka maanta la fiiriyo ama dadka ugu lacag badan wadaaday u badan yihiin mid baa jirto oo mar walba wacdiga waxa dadka u sheegtaan in aakhira loo shaqeysto oo adduun laga tagayo idinkiina daara dheer baad dhisanaysaan oo idinkaaba lacagtii gacanta ku haya miyayna taasi ku tusaynin inaad waxoogaa diidan tihiin in suuqa la idinku yar ciriiriyo oo
aad diinta isticmaalaysaan oo dadka aad leedihiin waryaan la shaqaysanin horta adduunyada in lagu talax tago ma aha adduunya jacaylkuna runtii wax wanaagsan ma aha laakiin waxaa ugu khayr badan dadka qof aakhiradiisiina u shaqaysta adduunyadiisiina u shaqaysta wuu shaqaysanayaa ilaahayna uu sheegay waa ganacsanayaa waa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah marka in la shaqaysto oo dhaqaalo la sameeyo oo lacag la sameeyo laakiin uuna kugu xambaarin inaad wixii lagu abuuray adilowdo ayaa midda meesha ku jirta nabiguna wuu ammaanay dadka ganacsatada ah ee diinta haysta waa kii dhahayay dahaba ahlu duhuuri bilujuur dadkii lacagta lahaa hantida lahaa ajirkii oo dhan bay la tageen saxaabadii fuqarada ahaabaa saa ku yidhi yusalluuna kamaa nusalli wayasuumuuna kamaa nasuum saana usoomayaan saana u tukanayna waxayna dheeryihin wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolahooda dheeraadkaana way sadaqaysanay taasaana anagu haynin marka waa fadlu min allah fadli ilaahay bixiyey weeye ee waxaa la diidan yahay adduunyada marka laga hadlayo ee dadka adduunyada laga reebayo adduunyo aakhiradaadii ku seejisa wey dhanka guurka marka la fiiriyo hadda ninkii raba gabadh Soomaaliyeed inuu guursado waa inuu inta badan dhib u maro oo timaha u soo xiirto oo isgeejiyo oo ishagaajiyo oo laakiin idinka wadaadada marka la fiiriyo waxaa tuhun ah jira in aad aayadii xadiis u sheegaysaan gabadhii oo aad ugaba dhigaysaan in laynka ugu dhow ee jannada lagu tegi kara ay tahay inay idin guursato guurkiina iyo furitaankiinuna aad buu u badan yahay wadaadadu way guur badan yihiin dumarkana way jecel yihiin marka hadda guurku wax la ammaanay weeye asalkuna waa in dumar badan la guursado oo ilaahay baa qur-aanka noogu sheego fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna haweenka wanaagsan aad jeclaataan laba ka guursada mathna wa thulaatha wa rubaaca afar ka guursada fa in khiftum haddaad ardaal tahay baqaya markaa allaa tacdilu inaad cadaalad aadan samayn karin haddaad ka baqdo fawaaxida marka xabaddu waa second option ama optionka labaad marka hadda taa haddii aan beri hore lagu baraarugeysanayn oo hadda lagu baraarugay ama dhaqaalihii isbedelay dhib ma laha laakiin waxaa daran dalaaqa badan furinka badan la guursanay la furay la guursanay la furay way jirtaa arrintaa iyada oo iyada laftigeeda moogtahay wix hadduu si kugu soo galo dhib yar waxaa suurtagala inaad maaragtay si dhib yar inaad ku sii dayso marka guurkoo la badiyo waa matluub laakiin waxa loo baahan yahay in laga taxadaro waxa weeye furitaanka badan dalaaqiioo batay oo iyadu runtii anigu aan aaminsanahay mujtamac oo dhan inuu ku batay oo wadaadaduna ay ka mid yihiin isagoo aad u fara badan oo mararka qaarkood aan ahayn sabab aan lahayn ama justifiable aan ahayn ama wax yar oo lagu yani waxa ugu daran ee ummadda la soo darsi karana waa burbur qoys inuu dhaco marka way jirtaa taasina